بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وكمل ولين اسكويي ولماذا أخيارتي قولك مينيسوتا si wal un ku eraan dhibkii ka dhii magaalada Laascaanood ee gobolka Sool dhibkaas meel ku dhii wali wal ku deerena dad masaakiin ee bilaan awlaad dogaal igadisay in iska jara hoob ilaahay ulamaada wali wal ku eraayana dhibkaas meel ku dhii isi dadkaas walan ka qabada lahaay aawa meeshan waxa isugu yimid culumadii iyo akhyaartii magaalada si ay wax uga dhahaan dhibkii ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool dhibkaas wuxuu soo gaaray dad masaakiin ah oo dumar iyo caruur odayaal iyo ganacsato isugu jiro hadduu Ilaahay yiraahdo culimadu waxay wax ka dhihi doonaan dhibkaas meesha ka dhacay iyo sidii wax looga qaban lahaa marka hore waxaan u yeerayaa Sheekh Maxamed Mursal oo bayaanka akhrin doona soo Sheekh Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd war saxaafadeed ku aadan dadkii Laascaanood laga barakiciyay bayaanka waxa soo saaray culimada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota waxaan rabaa inaan akhriyo qodobada bayaanka marka koobaad anagoo ah culimada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota waxaan aad uga xunnahay dilalka iyo falalka alxandarrada ah ee ku soo laalaabtay magaalada Laascaanood iyo nawaaxigeeda waxaanan cambaaraynaynaa cid walba oo ku lug leh xasilooni darrada ka jirta gobolka Sool qodobka labaad waxaan bogaadinaynaa shacabka reer Somaliland oo mar walba u taagan soo dhaweynta kaalmaynta iyo taakulaynta dadka Soomaaliyeed ee walaalahooda marka ay yimaadaan deegaanadooda iyo marka masiibooyin dabiici ah ay ka dhacaan deegaanada Soomaaliyeed ee kala duwan qodobka saddexaad waxaan cambaaraynaynaa falkii barakicinta iyo musaafiriinta isugu jiray ee maamulka Somaliland kula kacay qaar ka mid ah dadkii deganaa ku noolaa kana shaqaysanayay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool qodobka afraad waxaan cadaynaynaa falkani inuu ka soo horjeedo islaamnimada Soomaalinimada iyo bani aadamnimada intaba qodobka shanaad waxaan faraynaa oon boorinaynaa in la taageero gurmad degdeg ah loo fidiyo walaalaha ku waxyeeloobay ee dhibaatadaas qodobka lixaad waxaan codsanaynaa in dadkaas hantidoodii ay ka tageen loo xifdiyo sida ugu dhaqsaha badanna loo gaarsiiyo qodobka toddobaad waxaan xusuusinaynaa dadka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan madax iyo shacab intaba inay ilaaliyaan qofka muslimka ah diintiisa naftiisa sharaftiisa iyo maalkiisa waxaanan xusuusinaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadalkiisa iyo xadiis nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaah wuxuu yiri innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun sidoo kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala aayad kale wuxuu ku leeyahay wa'tasimu bihablillahi jamii'an dhammaantiin qabsada xariga Ilaahay nabigu alayhi salatu wasalam wuxuu leeyahay المسلم أخو المسلم وحاكل يري النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت معنوه حوية النبي عليه الصلاة والسلام حوليهي ليقينا إيا مالكينا إيا شرفتي انتبه حرام وي قفك مسلم كأديقيس وحرام xoolihiisa waa xaraan cirdigiisa in lagu xad gudbana waa xaraam ugu dambeyntii waxaan Allah ka baryaynaa in ummadda Soomaaliyeed dhex dhigo nabad walaaltinimo iyo isjacayl wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
bayaankan waxaa soo saaray culimada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. jazakallahu khayran sheekh maxamed mursal. haddana waxaan u yeerayaa sheekh xasan jaamici ama imaam xasan jaamici. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأبرار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين. مركور إلها مهدله waxaan taageeraynaa anagoo ah culumada Soomaalida ee gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka bayaankii hadda uu akhriyay Sheekh Mursal. علماء دور كودا وجوين وحواية بيان الحق حق إن عديان ونصرته حق أصلا إن أجر جاران ونصرة أهله ضدك حق له إن يقرب النقدان شاقة بيان كيسو حاكم ذاها النبي عليه الصلاة والسلام إنه حديث كتل مامي إن qofka muslimka ah dhiigiisa maalkiisa iyo sharaftiisa in lagu xadgudbo inay xaraam tahay. culimada muslimiinta waxay yiraahdeen iyagoo xadiiska sharxayo waxaa dulmi ah ku xadgudub naf aan sharciga islaamka banaynin, ku xadgudub maal oo sharciga islaamka aan banaynin, iyo ku xadgudub acraad ama sharafta insaanka ama dadka. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri unsur akhaaka zaaliman aw madluuma, walaalkaaga garab u noqo haddii uu zaalim yahay iyo hadduu madluum yahay. asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay yiraahdeen yaa rasuul allah sala allahu alayhi wasalam waan garannay waan fahamnay qofka madluumka ee la dulmay in garab loo noqdo, kan dhaalimka ah si garab loogu noqonayaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri waxaad ka qabanaysaan oo aad ka joojinaysaan dulmiga. dad walaalo ah oo Soomaali ah oo muslimiin ah in guryahooda laga soo barakiciyo, hantidooda in laga soo barakiciyo, in iyaga iyo caruurtooda la kala dhex galo waa dulmi. لذلك waxaa waajib ah anagoo raacin nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii hadda aan akhrinay anagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka amar qaadanayna oo ilaahay uu dhahay walaa tacaawanu cala al-ithmi wal-cudwaan, garab yaan la isku siinin dembi faldembiyeed iyo cadaawnimo. wixii dhacay waa faldembiyeed waana cadaawo dad muslimiin ah oo walaalo ah oo isla dhashay laga dhex abuurayo. walaalaha maamulka Somaliland si khaas ah waxaan xusuusanayaa asalka dowladda islaamka ama shacabka muslimka ah inay tahay inay garab isku noqdaan oo xuquuqooda ay wada ilaaliyaan, khaasatan dadka tabarta daran. nabiga wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam hal tunsaruuna wa turzaquuna illa biducafaa'ikum. waa riwaayad imaam Bukhari uu wariyo saxiix ah. waxaad ku helaysaan garab ilaahay Somaliland Soomaali weyn meel kasto aan joogno ilaahan garab ka rabnaa. rasuulku wuxuu rasuulay salaam waxaad ilaahay subxaanahu wa tacaala kaalmadiisa inuu garab idin noqday ku suurtagelaysaa oo risqiga meel kasto ka yimaado marka aad dadka tabarta daran aad garab u noqotaan. nin sheekh culimo ayaa sharaxay xadiiskaasi waxay dhahan waa shan dadka aan tabarta daran, waa masaakiinta, waa dadka fuqarada aan waxba haysan, waxay dhahan waa caruurta, waxay dhahan waa haweenka, waxay dhahan agoonta. dadka culimo qaarkood waxay ku dareen dadka waaweyn oo da'da ah. intaba dhib iyo dulmi ayaa ku dhacay. waxaa lagu xadgudbay hadalka ilaahay walaa tacaawanu cala al-ithmi wal-cudwaan, waxaa lagu xadgudbay hadalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo haddaan idin soo akhriyay. ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa wuxuu noo sheegay xadiis kale hal tunsaruuna ilaa biducafaa'ikum. xadiiskaas wuxuu raaciyey bidacwaatihim wa ikhlaasihim. waa xadiis saxiix ah.
waxaa garab ilaahay subxaana wa taala wuxuu idinkugu gargaarayaa oo keliya oo danihiinna iyo waxaad rabtaan uu idiin siinayaa oo keliya marka dadka idinku tabarta daran ay idiin duceeyaan oo iyaga iyo salaadooda xadiiskan wuxuu ku darayaa iyo salaadooda markii dadkii oo duceyn lahaa dadkii meesha salaada ku tukan lahaa dadkii khayrkooda iyo wanaagooda idin soo gaari lahaa oo walaalihiina ahaa idinla dhashay islaam ahaana caqiido naga wada dhexayso haddaad dadkaas barakiciso waxaad ka hortimid xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu dambeyntii iyo gunaanadkii intii dhacdadan mas-uulka ah culummo ahaan waxaan xusuusinaynaa ilahay inay toobad keenaan ilahay wuxuu amray yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniin haddaad tihiin ilahay u toobad keena tuubuu ila allahi tawbatan nasuuxa tawbatan nasuuxa culummadu markay sharxayeen waxay yidhaahdeen 4 shuruud ayaa la sheegay waxaa ka mid ah haddii meesha hanti ama naf ay wax ku gaarto in magdhow la bixiyo hantidaasna la celiyo sida sheekha bayaanka uu noo akhriyo sheekh mursal uu sheegay dadkaasi hantidoodii degdeg in lagu celiyo wixii dhib gaaray oo dhanna magdhow buuxda maamulka halkaas ka jiro ee Soomaaliland inuu ka bixiyo in maamulkaasi walaalaha iyo Soomaali oo dhan meel kasto ay joogaan in ay ugu cudur daartaan falka dulmiga ah meesha ka dhacay oo ilaahina aan raali ka ahayn wadadii nabiga calayhi salaatu wasalaam aysan ahayn si raxmadda ilaahay iyo gargaarka ilaahay aan u helno oo ilaahay uu noogu naxariisto cara ilaahay saan ugu badbaadno والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاه الله خيرا شيخ حسن. هذا نحن ويري إن شاء الله تعالى شيخ أحمد تاجر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سال مغليسين وحان علماء مسلمين هان صومالي هان كحن هاي عضادي أرقاق حيان فرير كالهيد وقف كستو الصومالية دافها دون كمال كستو جوغة ثابتي تاس بانو سوون مدينة أنو دينهان كهذا الله تاسو دين النفر رسول النبي الله صلى الله عليه وسلم قفك منكر حمان أركا قعنتها كزولي تام أود كرينو فبلسانه إنا نعد كنغا مقشينو وواجب ديني حديث لنغا دنبي قلينا تيلك الأول ريال وحين لوغن هاي الله سبحانه وتعالى وحاكم إذا مقعيدي سأي سفوين كيس الرحمة الرحمن الرحيم إلهي نحارس باكم إذا سفوين كيسه النبي صلى الله عليه وسلم عليه يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء قلنا حارس مخلوق للك كنول رب سبحانه وتعالى أي إذن حارسان هيا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الراحمون ذاتك النحاريستان يرحمهم الرحمن الله الرحمن كله يقانو أياو نحارسان هيا إخواني في الله النبي صلى الله عليه وسلم وحوت المامية markii xataa cadawga lala dagaalamayo in qaab qurux badan loo dilo inda allaha kataba ilaahay ihsaanka ay in shay kasta loo ihsaan falo ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala waajib ka dhigay markaas isagoo si fasiri wuxuu yiri wa idha qataltum fa ahsinu alqitla hatta markaad cadawga dilaysaan kaas horjeeda qaabka loo dilo waa in la qurxiyaan wa idha dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha حيوانك مركل لجورعي جيل يارج الله مركب الحياة عقيقة حفلتها مشروع لو جورعي إن قاب قرح بدن لو جورعي دين النفرسة ساسا وحال فريا إن حيوانك اللي جورعي إن مال كقرصون برتي لو صافيو كدي من هالمرلون تلو جرون تاوحان كودنا كل معمول كحربان بيسوبين كارانو فكر كود يجا وملحبنا جودهان waxaa suurtagal in qaab u arkaan maslaxada laakiin waxaan marnaba caqliga oo galayn qaabkii walaalada loo barakiciyay maadaama leey xayawaanka markaad gowracaysaan fa ahsinu dhibha gowraca qaabkiisa qurxiya marka qof bilaadamo muslima
haddana soomaaliyeed haddana qaraabo raxima qaabkii loo barakiciyey waa qaab anfariiriyan xadilna buu ahaa qof kasta oo muslim oo luqada ku hadla ereygaasi ama qaabkaasi wuu dhibay gabagabadiiyo gunaanadkii walaalada isaga in loo gurmado diintana faraysa waxaan leenahay nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi dunya qofkii naf kurbooyinka adduunka saaran ka fayda allahu subxaanahu wa tacaala maalinta aakhara kurbooyin fara badan ayuu ka faydayaa marka walaalaha soomaaliyeed oo haddaba kacay meeshay joogeen iyo halkay tageen iyo meel kastaba walaaladii soo dhoweeyay oo ka danqaday baanu u ducaynhaynaa waxaan u dardaarmaynaa qof kastoo soomaaliya meel kastoo joogo oo ay ka mid yihiin shacbiga ku nool Minnesota iyo Maraykan in walaalada loo gurmado in gacanta loo taago dhibkaas soo gaaray codkeedii in loo badan u baahan insha Allah taala Allah subhanahu wa taala qof kastoo hawsha gacan ka geysta Allah subhanahu wa taala Allah u naxariisto wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu khayran Sheikh Ahmed Haajir haddana waxaan u yeerayaa Dr. Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Cumar ayaan u yeerayaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين بيانك soo saarnay ayaan taageersanahay insha Allah taala ra'yiga culimada iyo wixii aan dheelayn halkaas ayaan ku cadeynay insha Allah taala culimadii ka dambeysayna ilaahay khayraasi subhanahu wa taala anigu kelmado kooban aan dhahayaa culimada marka ay wax ka hadlaan qof walbay la hadli karaan qof walbay maarad wax u sheegi karaan dawlad kasta iyo nidaam kasta wax u sheegi karaan marka waana inay uga qaataan dadka nasiixa inay tahay dadka walaalaha ah ee la barakiciyay ee habeen madow la soo raray oo dhibka ku dhacay oo maata leh oo qof kasta leh nin kasta waa ka damqaday runtii waxaana keenaysa caqiidada islaamka iyo diinta islaamka walnimada islaamka in laga damqado nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد مؤمنين تا سنة حريش شدودا هي استعايل كودا وحي لمدين هالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هدي وحبن كمذا يحنوسته دمان ويحنو سنايان dhammaan way seexan may xibnaha kale waa la soo jeedaa asaasan oo damqanayna waxa kale oo waajib ah waxa ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas dadkii kuwa u khayr badnaaya ilaahay idin ka dhigay subhanahu wa ta'ala maxaad ugu khayr badantiin ummadaha ta'muruna bil ma'ruf wa tanawna 'anil munkar wax wanaagsan waa isamreysaan waxa xunna waa iska reebaysaan arrinkan waa arrin munkar ah waa arrin in la iska reebo gacanta la iska qabtay waajib tahay hadii kale waxa ka imaanayo ciqaab ummadda dhan ku habsado ayaa ka imaanayo nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri wala ta'khudunna ala yadi dhalim wala ta'turunahu ala alhaqq adra aw la yushikanna Allah an ya'ummakum bi'adab qofka gardaran gacanta qabta oo ku celiya xaqa ku celiya wala ta'turunna ala alhaqi adra ama waxay u dhowdahay cadaab idin guud kulligiin idin ku dhaco inuu ilaahay keeno marka waxay u tahay samaamul amaan waxay u tahay culimada inay hadlaan oo wixii dhib oo dhacay laga hadlo oo laga reebo qofka daalimka ah oo sameeynayo qofku doona ha noqdo arrintaas ummadan ugu khayr badanahay ummadan saasan maaratay إلهي نودر سبحانه وتعالى أمدي وخربنا هاي وحن إلهي سبحانه وتعالى كبرينا يعني صدقي سنة قدام بيسي أما أفرتكي سنة قدام بيسي دوري صدقي سنة قدام بيسي ما لبا هايستي وحن إلهي كبرينا نبكى إنه إلهي كقاضي سبحانه وتعالى وأمدى إلهي كدق أمد ولا علاء عذو بدنا الدكسة أيا كوهر ريسا tira ahaan ma badna hadii inta yarta ay sii kala faniinto
oo ay sii kala jajabto cadaawad isu qabato waxay noqonaysaa in kulligood dhan ay baaba'aan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadana ha ka dhigo ummad mid ah arrintaana waa arrin ugu cusub in maaragtay insha allahu aysan soo noqona ilaahay ka baryayna subxaanahu wa tacaala sidii la sheegayna dadkaas maaragtay xaqoodii iyo wixii laga qaaday iyo wax alaala wixii ka maqan in loo soo celiyo saasaa maaragtay xaq ah insha allahu tacaala ilahay waxaan uga baryaynaa qof walba oo ka shaqeeya arrinkan oo khayrka inkiray munkarkaas in ilaahay ajar ka siiyo inta kalentoo dembiga sameynay ilaahay uu ka dhaafa subxaanahu wa tacaala walaalnimadana isu soo celiyo ummaddan nacaybka iyo yacni xaqdarradana ilaahay ka badbaadiyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu جزاه الله خيرا شيخ محمد سيسن دغسن علماده iyo akhyaartii meelan Sokoyti oo ka wali walku eraayana dibkii ku dhigay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool dibkaasoo linjaysidii bilaan iyo awlaad dagaal iyo gadisley hob ilaahay insha Allah taala wal intu ka damboy dadkaasina wal qobada fadni iyo tabtiye galaan hob ilaahay marka insha Allah taala ikhwaani halkaas ayuu shirki jaraa'id uu noogu ogyahay iyo bayaankii culimada ay soo saareen waxaan soo dardaarmaynaa in dadkaas la dhibaateeyay ama dhibtu ay soo gaartay in wax la qabto oo loo gurmado meel walba aan joognaba insha Allah jazaakumullahu khayran assalamu alaykum